السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada TikTok hawada Mareykanka dib ayuu ugu soo laabtay sababta uu ugu soo laabtayna waxa sabab u ahaa madaxweynaha la doortay ee Donald J Trump oo maalinta beriya xilka la wareegayo sidaan ognahay TikTok xalay laba message oo kala duwan ayay soo qoreen inta aan 6 saac la gaarin waxay yiraahdeen sharcigii dowladda Mareykanku ay dhaqan gelisay oo TikTok looga mamnuucay Mareykanka ayaa dhaqan gelaya sida darteed TikTok ma heli doontaan 6 saac markii la gaarayna sidoo kale waxay yiraahdeen sorry TikTok Mareykanka kama daawan kartid muddo saacadaha ayuu hawada ka maqnaa Trump ayaa markaa bartiisa Truth Socialka waxa uu qoraal ku soo qoray ku dhawaad 5 saacadood ka hor wuxuuna yiri shirkadaha aan gacanta ka geystay in TikTok hawada uu ka baxo wax ganaaxa ma mutaysan doonaan maalinta beriya usniina markaa xilkan la wareegana wareegta ayaan soo saari doonaa wareegtadaasi ayaa waxaan ku ogolaan doonaa ayuu yiri in waqti uu ku sii shaqeeyo TikTok Trump muddo 9 maalmood ayuu ku kordhin karaa inta TikTok shirkadda iskale ByteDance iyo shirkad Mareykan ay ka wada hadlayaan iibsigeeda Trump waxa uu sidoo kale soo jeediyay in 50% shirkadda iskale TikTok hadda ee ByteDance ay yeelato 50 kalena ay yeelato shirkad Mareykan oo ay dowladda dadka Mareykanku ama shirkadda dowladda Mareykanku ay dooran doonto cid ay noqonayso sida darteed isla markaa Trump qoraalkaas uu soo qoray TikTok hawada ayuu ku soo laabtay TikTokna qoraal ay soo qoreen ay leeyihiin waa uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Trump dadaalka uu sameeyay in 170 milyan oo qof dad ka badan oo isticmaala TikTok uu ogolaaday inay mar kale TikTok dib u daawan karaan ilaa 7 milyan oo ganacsiya marka hadda TikTok marka afurto qoraalkan ayaa ku soo qormaya meesha saaran welcome back ay dadka leeyihiin TikTok isticmaala ee Mareykanka waad aragtaa umaleynaya TikTok hadii aad furto qoraalku wuxuu leeyahay marka thanks for waxaan uga mahadcelinaynaa ay leeyihiin dulqaadkiina idinka mahadcelinaynaa iyo taageeradiina madaxweyne Trump dadaalkiisa ayay ku suura gashay in TikTok uu hawada Mareykanka dib ugu soo laabto ayay ku leeyihiin waxay sidoo kale leeyihiin hadda waad sii wadan kartaa inaad muuqaalo samayso aad share gareyso isla markaana aad daawato waxyaabaha TikTok aad ka jeceshahay sidaas ayay ku soo qorayaan marka Trump asagoona wali xilkii la wareegin ayaa waxa uu suura geliyay in TikTok oo muddo saacadaha ka maqnaa hawada inuu dib ugu soo laabto sababtu maxay tahay shirkadaha TikTok sida Apple iyo Android oo ababkooda laga soo dejiyo haddii ay sii wadi lahaayeen ganaax $5,000 ayay maalin kasta mutaysan lahayn iyo shirkadda kale oo Oracle oo iyaduna xogta TikTok ee Mareykanka kaydisay sida darteed maadaama Trump uu yiri wax ganaaxa ma mutaysan doonaan shirkadaha ogolaaday TikTok inuu hawada Mareykanka ka baxo sida darteed wareegta ayaan beri soo saari doonaa sidaas darteed shirkadihii waa ay ogolaadeen marka maadaama sharcigan hadda saacado way ka harsan tahay maamulka Biden ay sheegeen ba sharcigan inaysan dhaqan gelin doonin marka Trump marka uu beri xilka la wareego maamul cusub ama dawlad cusub ayaa Mareykanka ka dhalanaysa sida darteed awoodda Trump ay ku wareegaysaa isaga ayaana wareegtaasi soo saaraya maadaama shirkadihii uu xaqiijiyay inaysan wax ganaaxa mutaysanaynin muddadii saacadaha ee TikTok hawada uu ka maqnaa sida darteed ayaa isla markiiba ay fasaxeen wax yar Trump qoraalka markii uu soo qoray kadib TikTokna waa uga mahadceliyeen ninka TikTok madaxda ka xafladda caleemasaarka Trump beri waa lagu casuumay jimcihii markii maxkamadda sare go'aankeeda soo baxayna waa kii yiri madaxweyne Trump dadaalkiisa waan uga mahadcelinaynaa marka Trump waxa uu yiri hadda markii aan madaxweynaha aanan ahayn dadka dhan waa ay nacbaayeen laakiin hadda waa la wada jecel yahay uu yiri dadkii madaxda ka ahaa shirkadaha waaweyn dhammaantood waa ka soo qayb galayaan xafladiisa caleemasaarka Elon Musk waa saaxiibkii iska daa ninka iskale Amazon Jeff Bezos ninka madaxda ka ah Google Sundar Pichai ninka la yiraahdo ninka Facebook madaxda ka ah Mark Zuckerberg ninka TikTok madaxda ka ah Xu Jiu isaguna wuu ka soo qayb galayaa ninka OpenAI iskale John Alto dhammaantoodba waxaa la yiri kuraasta u horeysa VIP-da ayay soo fariisan doonaan Facebook waa ognahay hadda fact checking waa kuwii joojiyay maalmo ka hor oo xaqiijinta been abuurka waxyaabaha been abuurka la faafinayo oo kuwii joojiyay markii Trump uu la kulmay ninka iskale Facebook ee Mark Zuckerberg oo madaxda ka ah marka Trump dartiis ayaa TikTok hadda hawada ugu soo laabtay uuna u shaqeynaya waan arki doonaa marka Trump soo jeedintan uu soo jeediyo 50% in shirkadda ByteDance ee iska leh TikTok ay yeelato shirkad kale oo Mareykanana 50% ay yeelato wada hadalkaasi sida uu madaxweynaha hadda la doortay oo beri xilka la wareegaya uu u dhaxdhaxaadan doonana wayna arki doonaa laakiin TikTok hadda hawada dib ayuu ugu soo laabtay waadna daawan kartaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta wixii kale soo kordhana waa idila soo socodsiin doonaa insha Allah